subscribe our channel ka like tan nagu dhiirigeli inta lacag kama gadno Bravo Media oo adeegaha bulshada waxa idin soo gudbin doona warar ku saleysan shirweynaha ayaa ka tashiga beelaha dega gobolka Shabeellaha Hoose ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana shirkan ka qayb galay odayaasha dhaqanka waxgarad siyaasiyiinta gobolka iyadoo diradda lagu saaray masiirka gobolka iyo cadaalad darro ay sheegeen inay ka jirto saami qaybsiga dawlad goboleedka Koonfur Galbeed odayaasha waxgaradka iyo siyaasiyiintii shirweynahan ka qayb galay ayaa sheegay in qaab dhismeedka iyo saami qaybsiga beelaha dega dawlad goboleedka Koonfur Galbeed uu yahay mid aan saxnayn loona baahan yahay in wax ka bedel lagu sameeyo dhibaato ka jirto maamulka Koonfur Galbeed daraadeed ayaa dadkan isku keentay dadka wixii ku heshiiyaan hadii maamulkii uu ka baxo dadka inay dib u tashadaan qasab waay wixii ayaga anfacaaya wixii ayaga u roon waa la socotiin maamulka Koonfur Galbeed 10 sano uu dhisan yahay 10 sano 10 kan sano wixii la qabtay waxa jiraan baay bakool wixii beeso la qaado lagu qabtay waxa laga qaaday gobolka Shabeellaha Hoose madaxweynuhu waa Mirifle gudoomiyaha baarlamaanku waa Digil gudoomiye ku xigeenka koobaad waa Mirifle gudoomiye ku xigeenka labaad waa beesha shanaad haddana si gaar ah xiriir leh qoyska madaxtooyada waxa halkaas uga soo gudbay madaxdii sare waxaana laga saaray meesha madaxweyne ku xigeenadii oo ku qoran dastuurka awood qaybsigana ay xaq u lahaayeen beelaha halkan fadhiya inay iyagu qaataan meesha laga saaray dastuurku ku qoran waana la ogolaan waaye halkaas waa madaxtooyadii marka hoos loo soo dago baarlamaanku waa 95 44 waa Mirifle 21 waa Digil 10 waa beesha shanaad 9 waa Hawiye 7 waa dir ama biimaal midka u taqaanid adiga afarna waa Daarood gudoomiyaha maxkamadda sare waa Digil xeeraliyuhu waa Mirifle gudiga garsoorka waa 9 xubnood 4 waa Mirifle 3 waa Digil mid waa biimaal midna waa beesha shanaad taliyaasha ciidamada taliyaha nabad sugiddu waa Mirifle taliye ku xigeenkiisuna waa Mirifle taliyaha daraawiishtu waa Mirifle taliye ku xigeenkiisuna waa Mirifle taliyaha asluubtu waa Mirifle taliye ku xigeenkiisuna waa Mirifle taliyaha booliisku waa Digil taliye ku xigeenkiisuna waa Mirifle agaasimayaasha guud waa 25 18 waa Mirifle 6 waa Digil halna waa biimaal عبد العزيز وحماشان كيمادو بريغا كدب وحان ربنا دولة الصومالية إنه يوغاتو وحا كيمادو عبد العزيز لفتقرينا الله يستا داد كان وحو كشغيوها يا إنه كل ما يستسنة داديسة أو اسكو رعي النباتة دقو داد كان وحان كعد سايا إنان وح اسكو رعي النحن ولا ليالو وحان لنا قولك شبالله هوسي dadkii deganay dhibaatada ku dhacday run ahaantii dadaalna uma maqnaa leeyidna uma maqnaa danyar dhibaataysan waa inta soo qaxeenay amanka xamaqtuurin yihiin lacagtoodiina deked qalalana inta la geeyay halka lagu daldalaa halkaas loo sii wadaa wax dhici kara maahan kanaaladay qoda weligay qoda wax walba ay sameeyaan dib looguma soo celin gobolka Shabeellaha Hoose way dhaqaalihiisii baay bakool lagu cunaa ما سورابيدو من أقبلينو دتكان waa tashaday madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne shalay annaga doo madaxweynaha oo gacanta oo xilkii Soomaaliya Jamhuuriyadda madaxweyne ka ah ayaa qaladkan u dhacay in gobolka Shabeellaha Hoose la raaciyo markii horeba baay iyo bakool waxay ahayd qalad dhacay labadan beelood on ka tashan iyo qaladkaas dhacay marka madaxweynaha waxaan ku codsanayaa maadaama maanta uu mar labaad midida dabadeeda hayo in qaladkaas si sharciya loo saxo qodobkaas ugu dambeyn shirweynahan ayaa waxa laga soo saaray war saxaafadeed waxaana warbaahinta u akhriyay mid ka mid ah odayaasha dhaqanka in beelaha kor ku xusan in ay wax colaada ama xumaana ay u qabin walaalahood Digil iyo Mirifle ayada oo
oo u arko dhacdadii ugu dambaysay ee Baraabe ka dhacday iyo kuwa la midka ahba ee ka dhex dhaca ciidamada inay ahayn in aysan arin mudan in la qabiileeyo ee loo arko arin ciidan mas'uuliyadeeduna ay wada leeyihiin dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Koonfur Galbeed beelaha kor ku xusan Dir iyo Hawiye waxay codsanayaan in si dhaqsi ah loo joojiyo xasaradaha soo noqnoqday ee laga abuurayo gobolka ayna dad dana gaar ah u wata ay abuurayaan shirkan waxaan ku cambaareynaa rabshadaha abaabulan ee laga horinayo shacabka dhexdiisa gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose shirkan waxaan ku soo luugaynaa awood qaybsiga dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo ku takrifalka awoodeed ee madaxda dawladda Koonfur Galbeed sida dastuurka maamulka Koonfur Galbeed oo meel la iska dhigay taasi oo aan ku lahayn matalaad madaxweyne ku xigeen iyo caasimadii maamulka oo wali xal joogto ah loo helin ilaa iyo hadda maamulka uu ku shaqeynayo magaalada Baydhabo Sada Cabdi Taaliil Universal TV Muqdisho